dagaalka khawaarijta dhammaanteed oo kuma jirno waxaan leenahay marka madaxweynahana garabkiisa Allah galo annakuna waa ku garab taagana soo kuma garab taagnin meel ay joogto ahlu sunna wal jamaa min cirif ila cirif Soomaaliya waxay diyaar u tahay ahlu sunna wal jamaa inay ummadeeda badbaadido waagi hore waxa la yiri khawaarij lama dhigi karo meelahaas gobolada dhaxan kala qayli jirna khawaarij aan ka dhigi jirna laakiin haddeer madaxweynaha Soomaaliya inta isu keenay culimadii waxa la yiri magacoodu waa khawaarij ali wadanka haddeerta waad ogtihiin waxa ka jira khawaarij faraq badan ayaa ka jirta mid qarsoon iyo mid soo jeeda inta waa qaybo farabadan laakiin dadku midkay garanayaan waxa waaye oo inta badan la garanaya midka qoriga sito dadka la dagaalama dadka ibaadinaya oo baabi'inaya oo ogeydeen meeshii gudubka badnaa ay ka dhaceen sabab ay ka dhaceen gowricii majzaradii aad dhibka badneed xanuunka badneed oo qof walba muslim oo meel kasta jooga oo ka dhimriyay oo qalbigiisii ooyay dhibaatada halka ka dhacday Soomaaliya bal iska badaf islaamku oo dhan ayaa arrinka aad iyo aad qalbigoodii isu bedelay qof islaamnimo sheeganaya oo haddana waxaas ku sameynaya dadkii muslimiinta ah wax aad iyo aad u dhib badan ay ahaayeen dadka noocaas ah haddana diin sheeganaya ayagoo saas ah ay diin sheeganaya diin ma hayaan ilaahay rasuulkiisa sheegayo xadiis waxa jira Abu Daawud ko oo bixinayo sunan Abu Daawud waxa ilaahay rasuulkiisu yiri markuu khawaarijta sifaynayay yad'uuna ila kitaabillahi wa laysu minhu fi shay ilaahay kitaabkiisa dadka ugu yeerayaan waxay ka yihiin lama arkabo bal fiir xadiiska nabiga kaleeyhi salaatu wa salaam yad'uuna ila kitaabillahi wa laysu minhu fi shay وصفات كاللغو يقاني كمت كتابك إن ليسكو حكومان دونينا كتابك إلا قيلي آيان وحي كيهنا لما أركو النبي الشيخ عليه الصلاة والسلام ذاتك وليبا كتابك هايسته انت اسكار دافعين كتاب هيان اياكو كوا كتابك هايستو كو رقم ايو إلالين ايو كو عمل فلاح اللين ايان حديثك البخاري ايو تلمام اياه يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان بيقول النبي عليه الصلاة والسلام ذاتك هجان سميو إسلامك أي دليان الله ينيان كوا صنمك عابد يا أهل الأوثان كان وكتجيان ويسكدينيان إلهي رسولك يسا أمضي بريا فيري وكلماتك كصوب حي خير خلق الله أفكس كصوب حوي وأمضي سأوجد جايوي والجبر روتشي يا أمضة ورقلنا نوع عسى ما دون تسكتير بوله قلدا صدان هليل لها سيدي هير عادي هير ثمودا الله يلها أبو إله رسولك هير ثمودي هير عاد سؤال ولا دبعيل على القدرة يا دبعيل على القدرة إلى دور معلومات فأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 مركع نبي تمني عليه الصلاة والسلام من ضمبيه الحمد لله رب العالمين هل كان وحي أهي ماشي isagoo khaliifku hogaaminayo laga xoreeyay muqdisho bay ahayd ma sha Allah kaana khawaarijta laga xoreeyay oo ragii qoriga salkiisa ku yaani isku aadinahay inta gaashaan kala waayeen ay xoreeyeen alxamdulillah rabbil alamin ilaa ma hadda iska leh waxay dhashay mirahaani dheeleelkuma ahyaan mirahaani dheeleelkuma imaan waliba markaas دولة Soomaaliyeed oo ku dhawaaqda ma isa jirin laakiin haddeer xaajira waagi hore waxa la yiri khawaarij lama dhigi karo meelahaas gobolada dhaxan kala qayli jirna khawaarij aan ka dhigi jirin laakiin haddeer madaxweynaha Soomaaliya inta isu keenay culimadii waxa la yiri magacoodu waa khawaarij baalay waxa la iclaamiyay dagaalkoodii
weliba wuxuu iclaamiyay madaxweynuhu inuu ciidan kula dagaalamaa inuu fikir kula dagaalamaa inuu dhaqaalaha meelaha ay ka helaan ummadda ay ku gubayaan ay ku qarxinayaan oo ka jaraayo dadaalkii intiiba waa hayaa waxaan arkay maalin dhaweed asagoo la kulma Sheikhul Azhar azharna hadda waa meeshii aad taqeeneen oo cariiq ahayd oo islaamka laga fidi jiro laga bushgaray jiro waay jaamacadii kun ka sano agteeda jirta weey markaas buu sheekha wuxuu ku yiri waxaan rabaa Soomaaliya fikirkan xaq jirka sidii looga baabi'i lahaa inaad igala talido oo gacanba ka geysataba arrin aad iyo aad u qiimo badan buu runtii daawo raadinaya dadku daawada u raadinayaana intiinaan maahana waa inta banaanka jirta adinku waa daawaysantihiin laakiin adinka la idinka raba dadka inaad daawaydaan adinka la idinka raba daawada Soomaaliya loo raadinaya iraaco kaale ila tag Soomaaliya buu yiri asna waa ka aqbalay ma sha Allah kaan waa daawo raadin Soomaaliya inay daawowdo waana soo dhaweynayna arrinka aadan u soo dhaweynayna ما شاء الله كان إلهي خير بدن هاي دنسيو دجال كخوارج تضمنت سوكم جرنو مال أي شوكت أهل السنة والجماعة من عرف إلى عرف صوماليا وحي ديار أطهي أهل السنة والجماعة إن أمد هذا بدباديو الشعب كله بدبادشو إلا بدباديو ولا جبت باديو جورعة إلا جبت باديو قرحة إلا جبت باديو دلكة إبادين تجماعية بابين تجماعية لقبت باديو أو وح بادل لقول الله ينيو وحلنا مركه مدحوينها أنا قرب كيس الله قالوا أنا كنا واكو قرب تاجنا سوكو ما قرب تاجنين ما شاء الله كان إلهي خير بدن هاي جنسيو سياسة الدين توايبا سياسة الدين وايو مدي حد خليفك أولها سياسة دو كشيكين يوي سياسة محلية قاعدة كمية مركز سياسة يوحيا ولا شرح واحد كمية هاد سياسة الرئيس منوضة بمصلحة الرعية رئيس كسياسة دي توحي كنت حنتهاي مصلحة الرعية ده مع مصلحة ذاتك إن آخر له توجيهيه الدنيا دودنا له هجاتيو أي واحد تاسع واحد كواسو تشوغنا وأمضي ساسو قالها هي أيك لو أترسده أيك لو أترسده qofkii ka baqo isiraada waa ama adiga lagu qarxiyaa haday wax qarxiyeen asagaaba qarxa kaalmeynaya waa uu gacan siinaya ma jirto waxaan leenahay badbaadada shacabkeena madaxweyne kasto yimaada waa ugu baaqaynaa inuu ummadda sida u badbaadiyo dawladdu sida ugu dhawaaqday waa soo dhaweynaynaa waa ku gacan siinaynaa waa ku garab istaagaynaa ilaahay idankii waxaan rabnaa biidni illaahi alkariim magagan iyo miidaanu meel walba inay ka furanto oo meel walba ay tagtaan rabnaa malabkan maanta la iska cabahayo inuu meel walba tagaan rabnaa biidni illaahi alkariim meel walba ay nuurto waxaan leenahay jazaakumullahu khayra aljazaa